Yes, the waters heaven and the land, and the train is beneath carriages. No one leaves his home until home is a sweet voice. It's a sweet voice in your ear saying, leave me, run away from me now. I don't know what I have become, but I know that anywhere is safer than here. Forget pride, your servant is more important. Treat me well. I am humble like you. Why do you give me respect, disturbance, and a last name? But let me my family, from traffickers and avoiding tribal nation. Today we know that it's a World Refugee Day, and it's a big day. And the event I'm seeing is not serious. Because this is a big day, we know that it's a World Refugee Day, but the way I'm seeing the event, I'm not so happy the way you represent, well, because this is a good day, it's a big day, because the event should be also a colorful day. Why I'm saying that, our brothers, our sisters who are refugees here, we celebrate them with open. To know that this is a big day in country or all in the world. So I personally am celebrating with you. Also I'm thanking those partners who are here, who are taking contribution for their time to be here. I'm thanking all the people who are here also, the students, the pupils who are here also. Thank you. Assalamu alaikum. Magacaygu waa Firdawso Maxamed Cilmi oo ku nool xerada qaxootiga Xagadheer. Waxaan ka socdaa hay'adda TDH. Marka waxaan leeyahay maanta waxay tahay maalinta qaxootiga adduunka loogu dabaaldegayo. Xerada Xagadheerna aad ayaan uga dabaaldegnay. يعني وحرجينا إن شاء الله سنة كان سنة كيسة إن السنة معناتها هاي ده دن UN تدمان يبصوا قيب قلين إن نجلسوا قيب قل دونا حلفت كروح بدن إنه قبسوا من دونتو إن شاء الله وحن كلو قدر سنة يعني دمان أنت أقولتي وكنا لين يعني عن كفايدنا وحبنا شفرية وحين أقوم هذا علينا الدولة كينيا. That they wanted to celebrate with you today in this important day. But they told me to pass a message of greetings that they are celebrating with you with this important day, and they passed a message that they love you so much as refugees. They will keep on supporting you. We understand that refugee is a person like me and you. We respect the theme of this important World Refugee Day, and I will congratulate you guys for giving us the chance to celebrate with you and to serve you. Thank you so much. God bless you all. dabaaldegnay maalinta qaxootiga adduunka haddii aan nahay Xagadheer waxaan u dabaaldegnay maanta maalin xaflad aan caadi ahayn ay ka soo qayb galeen dhammaan hay'adaha kusugan kaamka waxaa kaloo ka qayb qaateen hay'ado kala duwan isku imaadeen meeshan sida UNHCR, WFP, UNHCR hay'adahaasoo dhan waxay muujiyeen maanta in rajo fiican iyo isbeddel fiican oo jiro qaxootiga rajooyinka marka hore waxaan jiray maanta way ka fiican tahay sababtoo waxaa la rajaynayaa qaxootiga waxay rajaynayaan inay ka bixi doonaan kaamkan labada sano soo socota inaan qaxootiga dhammaantiis halkan ay ku dabaaldegi doonaan ayaan rajaynaynaa sida qaxootiga rajada ay sheegeen hay'adahana soo bandhigeen waxaan rajaynaynaa insha allah in waddankaana nabad noo noqdo isbeddel badanna uu ka imaado insha allah hay'adaha marka hore sidii ahaa jireen rajada muujinayaan maanta rajooyinka hore way ka fiican tahay waxaan leenahay maalintan waa maalinta qaxootiga adduunka nolol 100 milyan ayaa adduunka qaxooti ku ah maaha in dadkeena ammaan kaliya aan qaxooti ku nahay meeshan waxaan rajaynaynaa insha allah qof walba oo qaxooti ama ku jiro inuu ka bixi doono qaxootinimada ma aha wax qofka bini'aadanka ku xukumaya ama wax marxalad qofka soo marta uuna ku gudbo waayo. Humanity to the world. They are humans like any other human being. They need to be respected, giving them space to change, space to showcase their talents, and allow them to integrate. Space, keeping them in the camps, restricting their rights, their rights and movement is not a plan. They have feelings like any other human being. They need to be trusted, empower them with education, and they will serve as a great agent of transformation. The only solution to refugees in this eventually world is attention and giving them a chance
to raise their grievance in national and international arenas. No one is born to be a refugee. It is just a status that can be changed at any time.